waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka waxaanu idin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay deegaanada ciidanka Puntland ay la wareegeen iyo halka haatan ay ku sugan yihiin sidoo kale waxyaabihii la yaabka lahaa ee lagu arkay deegaanadii ay maanta la wareegeen ciidanka difaaca Puntland ayaan idin soo gudbinaynaa iyo wax kasta oo ku saabsan howlgalka Hillaac oo haatan ku dhow heer gabagaba ah iyo sidoo kale wararka markaasi caawa aanu ka helino deegaanada ay ku hoydeen ciidanka daraawiishta ee Puntland intaan guda galin waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kugu horeysay ee na soo booqatay in subscribe-ka noo taabato muuqaalkana like saarto taas waxay naga saacidaysaa in dad kale uu markaasi gaaro muuqaalka aynu ku bilownaa ciidanka difaaca Puntland ayaa maanta dagaal kula wareegay deegaano iyo xarumo ay kooxda Daacish ku lahaayeen buraha Calmiskaad ee gobolka Bari saraakiisha ciidanka hogaaminaysa waxa ay markaasi sheegeen in deegaanada ay la wareegeen ay ugu tageen guri ay markaasi deganaayeen qaar ka mid ah saraakiisha Daacish gaar ahaan kuwa ajaanibta ah kuwaas oo la qariyay si aan loo arag markaasi loona aqoonsan ciidankii waxa ay tageen guri dhulka hoostiisa oo ay deganaayeen xubnaha sarsare ee argagixisada Daacish waxa ay markaasi u sameeyeen tuubooyin lagu neefsado shiraac ayaa la saaray kadib korkiisa dhir ayaa markaasi lagu beeray oo kor waa markaasi beer ayaa lagu yiri war ka soo baxay howlgalka ciribtirka iyo la dagaalanka Daacish warka ka soo baxay howlgalka ciribtirka Daacish ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamadu ay heleen lana wareegeen warshadii qaraxyada iyo gawaarida markaasi ay lahaayeen kooxda Daacish goobtaasi oo qaraxyada markaasi lagu diyaarin jiray sidoo kale ciidanku waxa markaasi waxay heleen xarunta warshadii qaraxyada iyo gawaarida argagixisadu lahayd oo la duqeeyay 14 February bishan ay ku guda jirnay 2025 burbur ayaana markaasi ka muuqda ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay howlgalka ciribtirka iyo la dagaalanka argagixisada ee Daacish haddaba marka laga soo tago hadalka ka soo baxay saraakiisha ciidanka sawirro markaasi ay baahiyeen warfaafinta markaasi ciidanka difaaca Puntland ayaa muujinaya goobo markaasi dhulka hoostiisa ah oo markaasi sida ciidankuba ay sheegeen lagu markaasi korkiisana laga dhigay dhul beereed gudahana uu yahay markaasi meel ay deganaayeen xubnaha sarsare ee kooxda markaasi al-shabaab ee kooxda Daacish haddaba ciidanka markaasi difaaca Puntland wali howlgalka muuse istaagin oo deegaano hor leh ay markaasi ciidanku u jihaysteen sida xogihii ugu dambeeyay markaasi aynu helayna ay sheegayaan waxyaabaha ugu la yaabka badan ciidanka ilaa hadda markaasi ay soo warinayaan waxa markaasi kamid ah in difaacyadii ugu waaweynaa ee kooxdan muddada badan ay lahaayeen kuwaas oo qaarkood dhulka hoostiisa in lagala wareegay oo ciidanka caawa ay ku hoyanayaan goobo markaasi hor leh oo horay ay ugu sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda Daacish haddaba deegaanada markaasi haatan ciidanku ay gaareen iyo kuwa markaasi ay kaabiga ku hayaan ayaan markaasi dul istaagi doonaa deegaanada maanta ugu muhiimsan ee ciidanka difaaca Puntland ay la wareegeen waxa ay markaasi waxa kamid ah deegaanka Shabaab oo ah deegaan markaasi muhiim u ahaa kooxdan isla markaana ay ku sugnaayeen xubnaha markaasi ugu sarsareeyay kooxda markaasi Daacish sida aan wararkeena hore ku sheegnayba haddii aad soo daawateen deegaanka Shabaab ciidanka difaaca Puntland markaasi 48 saac u dambeysayba waa ay ku sii siqayeen ugu dambeyn maanta ay markaasi u suurta gashay in ay la wareegaan ciidanka difaaca Puntland deegaanka Shabaab ciidanka wali waxa markaasi u dhiman deegaano kooban oo ay ku sugan yihiin xubnaha ugu sarsareeya ee kooxda Daacish sida deegaanka markaasi Dhasaan oo haatan la aaminsan yahay inuu yahay deegaanka kaliya ay isugu soo hareen xubnaha ugu sareeya markaasi kooxdan dhanka kale taliyaha ciidanka difaaca Puntland ee howlgalkan markaasi wada General
aadan cabdi xaashi oo howlgalka marka uu soo ilaaday oo ciidanka ay gaareen deegaanada haatan ay gacanta ku hayeen kadib warbaahinta la hadlay waxa uu markaasi sheegay hadaladiisii ka mid ahaa mitir ka mid a ciida Puntland argagixisa ma joogi doonto aslanba mana yeeleno qofka u dambeeya ilaa aan dilno ama isa soo dhiibo howlgalka Hillaac waa uu soconaya ayuu yiri haatan waxa kaliya markaasi ciidanku ay ku daba jiraan waxa ay tahay horta haatan lama filayo cudud ama awood kooxda Daacish oo markaasi dagaal kala hortimaada ciidanka difaaca Puntland maadaama difaacyadii ugu waaweynaa ee ugu muhiimsanaa ciidanka Puntland ay jireen haatan waxa lagu daba jira kaliya waxay tahay amiirada ugu sareeyo ee ugu waaweyn waxaana haatan isugu tageen sida xogta aynu ku helayno deegaanada Basaan Dhaadaar iyo sidoo kale Miiraale halkaas oo ay isku urursadeen sida muuqato ma hayaan ilaa hadda ciidan iyo sidoo kale awood ka hortagi karta ciidanka difaaca Puntland sidoo kale wax walba oo markaasi ay isku dayeen in ciidanka ay markaasi kaga hortagaan oo ay difaacyo kaga galaan haday ahaan lahayd godad dhulka hoostiisa ah oo markaasi dhir lagu dulbeeray haday ahaan lahayd buuro iyo sidoo kale jawaano carra lagu shubay la dul raseeyay intaba wax waa u tari weeday kooxda oo haatan ciidanka difaaca Puntland waxa markaasi ay jabiyeen wax walba oo kooxdani ay markaasi isku dayeysay inay isaga caabiyaan ciidanka Daraawishta ee Puntland wali waa uu socdaa howlgalka oo ma soo gabagaboobin laakiin ciidanka difaaca Puntland maanta waxa si rasmi ah ay ula wareegeen deegaanka Shabaab in uu gacanta u soo galo ciidanka difaaca Puntland waxa ay markaasi uga dhigan tahay guul aad u weyn marka loo eego deegaankan oo markaasi ka tirsan degmada markaasi Qandala oo markaasi masaafana u jira markaasi difaaca xerada ciidanka Puntland haatan ay la wareegeen Gaatir Oodan waxaana lagu soo waramayaa in ciidanka mararka qaarkood howlgalka uu hakad ku imaanayo taasoo keenayso in ay wadaan howlo markaasi miina baaris ah balse ciidanka wali guulo waaweyn ay markaasi gaarayaan haatanna waxa markaasi ay ku sii shaqayaan deegaanadii ugu dambeysay ee kooxdan ay ku sugan yihiin maalmaha iyo saacadaha in soo aadan waxaad maqli doontaan warar markaasi ka duwan warkan oo ah ciidanka in ay markaasi tagaan deegaano hor leh maadaama howlgalka si xawli ah uu ku socdo Puntland wali waxa ay wadaa guluf colaadeed oo ka dhan ah kooxda Daacish waxaana marka ka dambeeyo ciidanku ay gaarayaan guulo markaasi waaweyn deegaanka Shabaabna in uu ka baxo gacanta kooxda Daacish waxay ka dhigan tahay ama ay soo dadajinaysaa markaasi burburkooda iyo sidoo kale firxadkooda iyo in markaasi la soo gabagabeeyo howlgalka ciribtirka la dagaalanka argagixisada Daacish Hillaac waxaana haatan markaasi soconaya howlgalkii ugu dambeeyay ee kooxdan markaasi lagu soo afjarayo haddii aad nala dhameysatay ama nala soo gaadhay ilaa dhamaadka muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto oo subscribe-kaada ilaabin muuqaalkanna like saarto ma ku nooshahay qurbaha ma danaynaysaa inaad baratid qur'aanka kariimka qowlkii Eebe haddaba haddii aad u baahan tahay ama aad muddo raadinaysay fadlan iska diiwaangeli Al-Nasri Online Academy oo ah dugsi qur'aan oo online ah oo aad ku baranayso adiga oo gurigaaga ama goobtaada shaqo joogo wixii faahfaahina ee intaasi dheer ama macluumaad kale oo aad u baahan tahay oo la xiriira barashada qur'aanka kariimka qowlkii Eebe waxaad kala xiriiri kartaa lambarka WhatsApp ee halkaas kaaga muuqdo oo noqonaya furaha Soomaaliya 25 26 84 41 eber 24